meeshii la oran jiray Hargeysa ama Soomaaliland waxay noqotay bahal galeen qof kasta iska yimaado cid kasta iska timaado midba inta uu ka maqan Soomaaliland maalin walba wuxuu soo direeyay wuxuu isku dayay burburinteeda wuxuu isku dayay baabiinteeda mar kasta oo waxa sameeyana wuxuu isleeyahay kuma oga maalintu wax uga baahan uu imanaya maanta Hargeysa buug farcida ay soo xasuuntay baan rabaa dadka inaan saarnay balintan daawo matalaadii ay lahaayeen lama siin meel qof walba boqor yahay meel qof walba isagu xeerka uu dejinayo dawladnimo taalo هذه اوكي وقضب وناكسن ان انتاسي waxay waa ciise reerka la ilaa ciise ciise waa reer weyn oo sharaf iyo karaamo leh halka ay dhig waxa ciise la isku hayo waxa Djibouti la isku hayo waxa maamulka la isku hayo waa kala laba midda kale in diishiga waxa weey inantani waa xalayna magaceega bullo waa dadka social media caanka ka ah Djibouti mucaarid bay ku ahayd Somalilandna waxay isku daydaa mar walba burburinteedii baabiinteeda dadka ka shaqeeya qurba joogtiga meelaha jooga hadda waxaan doonayaa inaan idin dhegeysiiyo bal arrintan yar bal marka laga yimaado heshiiskii badda Soomaaliland iyo Ethiopia wadagale way ka soo jeestay oo waxay cadeysay iyadoo Ciisa in isaaq dhulkeedii uu siinay maxay heeday wax noocaasi ku misaalisay oo marka ay soo dhaweeyso heshiiskan xasan sheekh tugriga Soomaaliya tugriga wadagale oo dhulkeedii ay badbaadeen waxay cadeysay fiirso qodob wanaagsan way halkan waxaad ka aragtaa sida ay u taageertay xasan sheekh adna aadan u caayaso waxyaabaha soo dhan inta aanan taagelin inantani waxay tiri anigu ciisaanahay waxaan ka soo jeedaa sayla way cidba kuma diidana Soomaaliland wax ku leeyahay haddana waxay leedahay Hargeysa oo Somaliland waa inaan nigis iyo kiishile aan ku dhaxmaro dastuurka Somaliland lagu daro waa waxyaabaha ay u ololeynayso halkaay adna aadan dhakhtar oo aad garanayso qiimaha ay ku leedahay Somaliland 24 saac waxay isku daydaa caydeeda iyo inay ku samayso waxyaabo aan ka qorto islaan jaahilada ku tilmaantay waxay soo qaadatay hadii kuwa ku gordha gabow mooyee una ku tarin gabaygi gaariye ay soo qaadatay iyadoo ka hadlaysan marka adna aadan Somaliland difaacaysa ay leedahay gabow iyo waxa soo mutaray qiimo male aqliyadeeda yar waxay la qurux badnaatay iyadoo waxay doonayso adna aadanna taas ku sameeyay waxa jirtay markii MOU-gu uu bilaabmay ee Somaliland sidoo January labadeedii waxay soo post gareysay post ay soo qaadatay Siyaad Barre hadal uu ka yiri baa la xabashada iyo Siyaad Barre uu ka hadlay uu leeyahay waa dagaalkii 77 Soomaali markay mid ahayd waa markii ciidan Somaliland maanta madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo isagoo ahaa pilotkii haystay ama duuliyihii haystay in la weeraro 77 dagaalku waa markii uu haystay marka garan mayna Djibouti halkii joogeen Ismaaciil Margeele siday doontaba ahaatee maalintaas ay soo qaadatay hadaladii uu lahaa maalintaan bala fikir baanu ahayn Somaliland la fikir bay ahay dadka halka joogan la fikir bay ahayn oo xabashi laakiin waa la waayay waana salakalatay waxay soo qaadatay shantii Soomaaliyeed ama Soomaaliya oo awood lagu ilaalinayo oo ciidan lagu ilaalinayo waxyaabahaas waxay soo qaadataa mar walba iyadoo Refsi Dream sameynaysa Abiy Ahmed oo sawir meel qalalana sida u dhaxmarinaya laash waxyaabaha soo dhan waxay mar walba isku daydaa gabadhaas inay Somaliland hadkiiso inay Soomaaliyeed inay madaxdeeda ceebayso inay ka soo horjeesato haddaba maanta waxay timid waa waxaan rabaa inaan idin weydiiyo maanta waxay timid Hargeysa Book Fair ayaa soo casuuntay ma garanayna soo casuuntay inay si kala u timid buugaag bi ka siibisanaysa ilmaday xaaska qubasa maxamed ibraahim mursaba hadraawi ilaahay naxariistiisa sawirkiisa bay dhundhunkanaysa kuwada Somaliland hoosta ka nacabaynu garanayno Umar Sayr biyo kuwaas marnaba Somaliland u hadlino sidaas Soomaali weyn iyo waxaan la gareeyay raadiya soo sheer gareynay kolba u soo diraya inamadeenii iyo hablaheeniba buunbuuninaya oo bulqareen waxa akhriya bulqareen roob la dheeraa leeyahay inantaasi mar hore waxyaabo ka caban jirtay Djibouti waxay ku soo ciloobeen waxay ka caban jirtay wax la yiraahdo wala madax yaani iyagoo wasiirada Djibouti oo ay u shaqeynayay ay ku toojar gareynayaan hadii aanad waxaan noo sameyn shaqadan ka eeriyno waxyaabo sidaas oo ay ka hadlayso ashaxumoonan anigu deeqan ka oran karin in dadku way la qiiroon jireen hadii ay mushkiladaasi jirto meesha doonto Soomaaliya ka jirto waa dhibaato iyada u taala
Jabuuti bay waa dalkeygii way mucaaridi kartaa anu markii horeysan ku arkay ama Somaliland aan arko ama iyadoo joogta waxaan moo islahaabo waan faraxsanaayo dibalaha mucaaridkii baa lagu heshiiyo Somaliland oo dantaada lagu kasaa waxay doontaa inaad tiraahday mucaaridka Jabuuti la soo dhaweynaya midna aan ishaynay mid kale laakiin iyadu bilowgiiba barnaamijkan way ka soo horjeesatay ama way ka soo horjeesataa Somaliland goodo way ka soo horjeesataa Soomaali bay walaalaysaa wax aan shaqadeeda hayn bay gashay haddaba su'aashan isweydiinay wax tahay sirdoonkii qaranku miyayna Somaliland lahayn wala sirdoon malamiya Somaliland miyaanay lahayn dad waxyaabahaasi ajendayaasha social media maynan tayari reer Somaliland Facebook wax ku soo qorto qabta sirdoonkeena ma inanka madaxweynaha wax ka yara sheegun baa la ereeriyadaayo maalin bal la sameeyaa war sirdoonkii qaranku ina bacaluulow inaad ardeenin tafa oo sirdoonkii wax ka bedelay baan kugu ogeynay dadka sidan oo kale siday u soo galaan ilaalinta qaranka adaa u qaabilsan dadkan way wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland Soomaha inay dadkeegu la socdaan waxa ka dhacaya bulshada hareeraheega sidee baa loo ogolaaday qofkan in uu soo galo okay markii soo casuumayay Hargeysa Book Fair oo Somaliland ay soo casuumayaan gabadhan background-keega may soo akhriin miya may qofka caanka uu kala duwan yahay qofka aan bulshada inta badan Hargeysa Book Fair waxay soo casuuntaa dad magac leh ciddu doonaha ahaado haddii jaamacad qofkii soo casuumayso xaq bay u leeyihiin haddii Hargeysa Book Fair soo casuumayaan ama dadka buugaagta qoray bandhiga buugaagta la soo bandhigo maxay tahay hay'adda dhaqanka iyo waxyaabaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta waa ina background-kiisa la soo hadii looga shakisay arrimo diimeed iyo dhaqan xumo waa in wasaaradda diinta iyo awqaafta lala wadaago background-kiisa qofkan marka la akhriyo maxay ka qabtaa sharcigan ku qaba wasaaradda kale wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland waa in barnaamijkan soo eegto qofkan soo akhriyan background-kiisa sirdoonka qaranku waa inuu ilaaliyo qofkan airport buu ka soo degay waa inagii buu noo imanay waxa soo dhan waa qof sensitive oo Somaliland iyo arrimaheega ka hadlayo Soomaali oo hadlo shan Soomaaliyeed daadiya ama gabadh ha ahaato ama wiil ha ahaado dhaqamada Soomaalida cajiibka waxa kamid ah waxa lagu waa gabadh war sharciga wadanku iminka Ilaahay kolka uu qof ciqaabayo tusaale zani Ilaahay qofka ma oran nin tan waa gabadh ka dhaco iyo labadiiba waxa la ciqaabtay ay galeen dambi isku mid ah lama oran ninka lagu ciqaabaya zani kana saaniye lama oran tan waa gabadh iska dhaafa gabadh hadii dambi gashay salaada Ilaahay ka weydo macnaheedu Ilaahay oran maayo waa aynaan waa gabadh waxa doontaa iska sameeyay no sharcigu waa sharciga islaamiga waa sharci oo u simeeyeen shuruucda dawladaha way u simeeyeen dhaqankii xeerarka way u simeeyeen waxyaabaha dumarnimada aynu ugu naxariisanana waxa weeye gabadhu hadii yani sharciga wadanku muxuu dhigayaa muxuu u sameeyaa tanaasulaad يعني in dumarka wax loo sameeyo la dhiirigeliyo shaqooyinka waxbarashada ma aragtay gabadhi maadaama gurigii wax badan ka haysayna waxyaabo fara badan oo tanaasula loo sameeyo sax in xataa gabadhu markay umushay iyadoo shaqo mushaharkeega sii socon karo dadaalo dawladuhu saasay sameeyaan laakiin lama yiraahdo gabadhan waa dambiilay waa inaan maxaad ma igula qaadan bay qaar koodhan waar gabadhu waxa weyn inantani waa inan saameyn leh hadalkeega la dhageysto bulsho badan ku xiran tahay waxa ay oranaysaa uu ka duwan yahay waxa uu qof oranay imsan nin baa halka gidaar iska fadhiyo rago magac rag iska sito wax soo kordhinay hadaba sharcigu waa inuu gabadh iyo wiil iyo nin wax la yiraahdo waa naagay waa inaanay waa ceebe ma jirto adeer dhaqamada iyo waxyaabahaas inaga day Somaliland baa waxa lagu arkaa ummadaha kale way la xisaabtamaan wixii gabadhay wixii nin qofkii dambiga marka waxaan oran lahaa arrinta laga istaago shard sirdoonka wadanku ha shaqeeyo gabadhaas hadii joogtana ama hala dhaafiyo wadankeega hala geeyo ama adeerow sharcigu talaabaha ka qaado waxa weeye meeshan bahal galeen ku qof wala iska soo galayna adeerow naga daaya shacabka reer Somaliland hala isgaarsiyo arrinta ay gaarsiiyo sirdoonka qaranka iyo dawladda cidday khusayso aad iyo aad